محمد عبد الله فرماجو اللي ويدي مر سابتك وقصبيسي إن عبد الكريم الشيخ موسى قميص إثيوبيا وحاول عذار كره هذه ما أويري وقاعدين كولي قد يالديبي وياب وقاعدين كميسين تصوماليات وقاعدين كميسين أهين تحقوق له وقاعدين كميسين أهين بني آدم سيديبو مدحوينين الشجرة ياهي والشجرة يقولي بقرك الصوماليين مثله أما الصوماليين مثله ووديه كرا وقاعدين كولي قد إثيوبيا كلو ديبي وحاسوا أنه واحد كسياب بدن سيديبو محمد عبد الله فرماجة مانتا الموجي برهيل الأبولية يصيروا كعريسن إن أحمدوبي وحبسي كوبوغدي عبد الكريم الشيخ موسى قلب دقح واحد عيودن شعب الصومالي سوكمين نقول دبنا هيسي أمكاك هوا دب أصيدا سوداعي لكن دولة اللي هوينا لجها نجيب لجوهم جو وقف كسوق صوماليا ما أنتوا حوليه هي كواني وحي نقدين كوحدة قيانا قرن كواني وحي نقدين كوحدة نبرين نحدين لكن سيدا موقتولي waxay lacag siinayaan dad biiraqaatayaal oo doonayo inay xaafadda ka sheegaan waxaysan u qalmin in lagu sheego daayir hoda badano hebada basiyo xataa halyeedawa daayir hoda badano hebada basiyo xataa halyeedawa وحتى يهلي دواها دالك وروه مركيسيو جعلوا شقرانكو صحافتنا هدنكا وهالقما قضيتين dalka Soomaaliya wuxuu u baahan yahay in la badbaadiyo oo laga badbaadiyo horarka iyo gumayso shaqeeyaasha sheekalkaalka ah sida darteed dadka Soomaalidu waxa la joogaa xilligii ay sameyn lahaayeen kacdoon salmiyo oo loo dhan yahay waxyaabaha la yaab kale waxa weeye in xilligaani maamulkii oo horjoogaha ka ah Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay doonayaan inay dhibaateeyaan oo ay burburiyaan maamuladii Galmudug iyo Jubbaland sababta kaliya ee madaxweynaha Jubbaland loo heestay Axmedoon waxay tahay booqashadii uu xabsiga ku booqday halyeeyga Soomaaliyeed ee sida xaqdarrada ah loogu dhiibay gumaysiga Itoobiya Cabdikariin Sheekh Muuse xafidullah oo loo yaqaano Cabdikariin qalbi dhagax habar qaba lagu surmo halgamayaashii dalkiyo ankii shacabka dishay habar qaba lagu surmo kooxda oo horjoogaha u yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa ay muqsho ka wadaan abaabul ay doonayaan inay ku wiiqaan ama ku burburiyaan maamulka Jubbaland waxaana hawsha loo xil saaray waa nin siyaasi oo horay wasiir soo noqday lagu magacaabo Ciilmooge ninkaas oo xil soo noqday wasiirka warfaafinta waxaan la hilmaami karin bulshadu wali hadal haya alaagi soo bayo halkad qalbi dhagax dhigtay sidoo kale kooxda oo horjoogaha u yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa ay doonayaan inay abaandulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya u magacaabaan dagaal oogihii weynaa ee Barre Hiiraale kaas oo isla yihiin ugu yaraan waxa uu weerar ku qaadi karaa maamulka Axmed Madoobe ee Jubbaland hase yeeshee xeeldheerayaasha arrimaha amniga waxa ay leeyihiin way adkaa doontaa Ciilmooge iyo Barre Hiiraale sida ay ku galaan Jubbaland maadaama Axmed Madoobe lagu yaqaano inuu yahay nin adag oo dhinaca amniga ku xeeldheer dawladdaani waxa ay dad badan ka sugayeen noqoto dawladdii dalkaani dadka Soomaaliyeed baadi lahayd laakiin sida muuqato waa lagu hongoobay oo waxa ay noqotay lamood noqon sawaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maamula ama hogaamiya maamul uu milkii u leeyahay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir waxa ay waqtigiisu ku dhameysanayaa inuu qof Soomaaliyeed cadow u dhiibo inuu dad Soomaaliyeed xasuuqo weeraro sida wixii ka dhacay Bariire wixii ka dhacay Jilib wixii ka dhacay Haanta Dheer iyo wixii ka dhacay guriga Cabdiraxmaan Cabshakuur ودولة القادر وأنو أتكيسكرين معارضة ويرها كصباحية ودولة القادر وأنو أتكيسكرين شركة معارضة ودولة القادر ودونيسو إن أيدلك كوما مشو كومنتس لايك يبربغاندا لوغو فافيو براها بروشاسي تويتر كي فيسبوكا وسبحانه لغوبو وحق كليه سبنيه ورارك كديهانا وهو واغا عصو Ogo wa wa ga
عصور